gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo saraakiil baarayaal ah ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa xerada tababarka ciidamada gaarka ah ee Danab ee Beledoogle. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute iyo saraakiishan kale ayaa u tagtay halkaasi baaritaano lagu sameynayo agab ciidan oo la waayay sida saraakiishu ay sheegeen, iyadoona dhinaca kale isbedel xagga dhismaha iyo hogaankaba lagu sameeyay ciidamada Danab ee ku jirta saldhigga Beledoogle ee gobolka Shabeellada Hoose. xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay inuu bilowday isla xisaabtan oo marnaba aan la iska dayn doonin in la dayaco agabka ciidamada, isla markaana ciidamada Danab aan laga filaynin wixii halkaasi ka dhacay. laakiin isla xisaabtan baa dhici doona. hadalka intii si badneed waxa iga qaatay saraakiishii jananadii. waxaan rabaa nuxurka inaan idiin sheego, la isku dayn maayo waxaas. suurtagal ma ah ninkii haddeerba maaragta ku talagalay waxa fiican waxa aad hayso qarisay inaad iska keento. wixii aad hayso ood qarisay waad aragtaan gudoomiyihii maxkamadda jooga, anigoo xeer ilaaliyaha jooga, bahashu ciyaar waa dhaaftay. waayo waxaa inta qofku hadduu damiirkiisa uu xukumi waayo ushaa lagu xukumaa, laakiin Danab lagama filayn waxaas dhacay. gudoomiyaha ayaana dhankiisii sheegay inaanan loo dulqaadan doonin falalka noocan oo kale ah, isagoona hoosta ka xariiqay inay xerada joogi doonaan saraakiil baarayaal ah kuwaasoo diyaarinaya kiisaska kadibna lagu maxkamadayn doono isla xerada askarigii lagu helo faldambiyeed. dambiye la yiraahdo dambiyada lidka ku ah shaqada iyo ammaanada ciidanka waxaa ka mid ah lumin agabka ciidanka aad lumisaa. inaad lumisaa haddii la diidaa inaad haddaan lunsato ka war oo adiga gadato dantaada gaarka ku raacato. inaad lumisaa ay kaa lumaan ay dayac kaaga lumaan dembi waay. haddaa adiga gadato ka war oo lunsanto, hadda dhibaatada iyo jabhadda lala dagaalamaya adaaba ka darno dhibaato kale ah oo meesha noo fadhiyo waay macnaheeda. annaga sidaad nooga barateen miidinka joogayno xamar hadda kadib laga bilaabo maantadan halkan waxaan ugu tagaynaa qayb kiisaska diyaariso. markii kiisaska diyaariyaan kadibna halkaana la imaana meeshana lagu maxkamadeynaa in la soo qaado oo taliyaha guutada xamar ilaa xamar oo soo wado ma sugayso qof xukuman ama qof xuraha inta joogaya ama qof xukuman xamar tagay. labada wax u dhaxeeya ma laha. halkaanaan imaanayna waa fiirsana meeshan degi lahayn. waxa uuna sidoo kale kula dardaarmay ciidamada inay yihiin hay'adda kaliya ee looga fadhiyo ilaalinta sharciga, sidaasi daraadeedana aysan u ogolaanaynin inay daah u noqdaan mid ka shaqaynaysa sumcad dilkooda. waajibka kale oo askariga isargaalka saaran oo ugu horeeya waxa waaye inuu dalkiisa difaaco. macnaheeda markii la soo koobana waxa waaye inuu ilaaliyo sareynta sharciga, inuu ilaaliyo. saasay ku imaan kartaa dawlad wanaagsan iyo ciidan wanaagsan intaba. Soomaaliya ama dalkeena dawlad ahaan uma burburina, waxa u burburay ciidan ahaan u burburay. sababtoo ah gacanta cid sharciga qalada gacanta qabaleed waa ciidamada. haday ciidamada ayga wax qaldaan ka war yaa qabanay cid qabaysa malaha. qalad qofkii wado oo ciidanku dhex jira inaad dacweysaan oo taliyaha idinka sareeyo u sheegtaan. taliyaasha horimada iyo kooxaha hadda joogan waxaan kula dardaarmaynaa oo u soo sheegaynaa in askariga ka tirsan ciidanka laga qoraa daily report. ma akhlaaqiisa muxuu yahay, akhlaaqiisa ma fiican tahay, qof xun iyo qof inay isku dhex jiraan isku lib qasnaadaan.